marka hore waxaan u hambaliyeynayaa una duceynayaa walaalkay Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo xil culus loo doortay caawana nagu casuumay xafladan sharafta badan. waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay ha kuga garab galo xil runtii aan muddo badan aan maaragtay soo waqti badan ilaa baarlamaankii 8aad aan soo hogaamiyey oo ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadeena baarlamaanka igu soo sharafeen. waa meel aad u fiican, waa meel aad u sharaf badan oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed danahooda laga fuliyo. qofka xilka haya asaga waxa laga yaabaa in culeys badan la kulmo, laakiin meel danta qaranka runtii aad iyo aad laga badbaadin karo, guulo badan laga soo gaaray. adiga iyo baarlamaankaagana waxaan u rajaynayaa inta noo harsan si sharaf badan inaad ku dhammaystirtaan. waxaan rajaynayaa waxaan ku ogahay kabtahumo kuma ogi, marka waxaan aaminsanahay in uu daadixin doono xildhibaanada sharafta leh oo muddo badan ku soo jiray oo asaga maaragtay kaga waayay aragsan. waxaan leeyahay gudoomiye Cabdiqaadir waa nin dhalinyaro ah, aqoon-yahan ah, karti leh. marka idankan waxaan idinka codsanayaa inaad maaragtay intuu arday asiga basaalkeena ama laga soo gaarahayo inaad ku garab istaagtaan oo yani waxaa la yidhaahdaa haweenkan raalli iga ahaadeen waa qofka markuu gabar guursado waxaa la yidhi tacliinta asigaa laga sugaa. waxaa laalwii odayga soo jeeday waa iska fiican yihiin, laakiin markay goroob tahay war ninkii asaas mahaan jiray adiga inay wax mataqaani meel lagu bilaabaya. baarlamaanka maadaama baarlamaan hortiisna maamulba soo wada yahay, odayga marka maaragtay wax yar maaragtay yiraahdaba yaan la dhihin aniga halkaaga soo yahay lagu bilaabin. si fiican loo gar istaago. warka ma badinayo. waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta madaxweynaha hogaaminayo xafladda ka soo qayb galay iyo labada aqal iyo maaragtay ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha cusub hambaliyo halkaaga Allah ku fududeeyo insha Allah. dawladeena oo runtii qaranka Soomaaliyeed si fiican ugu soo shaqeysay oo dalka dawladnimo dhab ah gaarsiisayna inta hartayn ilaahay garabkeed ha galo. qof kasto khilaaf ku jiro amba maaragtay inuu wax xaleeyo u fikirayo Soomaaliyan Allah soo toosiyaan leenahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.